السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Nima. janaalka igala socotiin waa luuqada Faransiisku baro af Soomaali. maanta cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay nolosha maanta jirto confinement wax la dhaho. madaxweynaha Faransiiska wuxuu yiri 11 ilaa May 11keeda ayaan waxaan ahaanaynaa confiné. guriga ayaa la joogaa, qof baxaya ma jirayso. laakiin qof walba oo shaqeeyo ama iska leh dukaan ama ganacsato ahaado ama shaqaalaha wuxuu u ballan qaaday 1500 saa meeshaas ugu aragtay 1500 ayuu u ballan qaaday dadka ganacsatayaasha. sidii aan ku weydiisan kareynaa lacagtan iyo inta qof oo ganacsata ah, yacni maxaa weeye commerce haddaa tahay 1500 ayaa xaq u leedahay. artist haddaa tahay 1500 ayaa xaq u leedahay. haddii aad tahay profession libéral haddaa tahay sida dadka baaqsheega iyo waxaas ka shaqeeya ama dadka kaleente oo dee liberaalka oo maxaa economic seedka website ganacsato ka ah sidaan oo kale ayagana 1500 ayay xaq u leeyihiin. iyo autre agence iyo agencooyinka kale iyagana quel que soit leur statut. qofka ganacsi hadduu yahay title koro waxa wato 1500 ayuu xaq u leeyahay. haddii aad tahay société, haddaad tahay entreprise individuelle, haddaad tahay association, haddaad tahay etc etc. haddii aad tahay maxaa la yiraahdaa qolaas ayagana micro entreprise, haddaad tahay adigana maxaa la yiraahdaa ayagana statuas 1500 ayay xaq u leeyihiin. sidee u weydiisanayna iyo sidee u buuxbuuxinayna halkan ayaa niga tusaya qositiga soo dhacaya. koley qofka oo ganacsatada ah number ayuu leeyahay. numberka waxaa la dhahaa siiqeyn la dhahaa. numberkaas siiqeynka ayaa laga rabaa marka ugu horeyso. wuxuuna laabashka waxaa weeye tu vas suivre chaque étape walbo maragta iyo formulkan oo buuxinaysa. saa u buuxinaysa waa inta étape waa 4 étape waa 3 darajo ay kala leeyihiin aad buuxinaysa. horta website-ka magaciisa waa kaas. website-kaas aad galaysaa, waa naga qarisaa dhihin nigama qarin meesha ku qoran yahay import waxa weeye gouvernement. marka ugu horeysa meesha adiga particulier data meesha ku dhufanaysa. haddii profession tahay meesha ku dhufanaysa. waa tilaabta ugu horeyso aqaadaysi. etaabka labaad waa kaas asna. etaabka labaad waxaa gelinaysaa numero fiscal oo 13 shifra ka samaysan. numero fiscalka waa numberka aan buugaada kugu qoran. etaabka noogu xigo waa etaabka saddexaad sélectionner le service arabta ayaa selectionaysaa, waa kala dooranaysaa. ay service arabti ayaa kala dooranaysaa. kadib etaabka saddexaad sélectionner ensuite maaragtay formulka dooranaysaa coronavirus 19 maaragtay échangement waa dooranaysaa. wuxuu yahay je signe un changement de situation personnelle, j'ai besoin maaragtay justificatif. j'ai une question maaragtay générale sur maaragtay prélèvement. wuxuu yahay de j'ai un problème concernant le paiement de mes impôts. signaler je signe une erreur sur le. après vous demandez waa weydiinaysaa maxaa la yiraahdaa kolley situation wuxuu ku saabsan yahay ayaa kala dooranaysaa. etaabka lixaad demandkaada ayaa sheegaysaa wuxuu yahay. meeshaas ayay demandkaada wuxuu ku qoraysaa. waxaa gelinaysaa nom prénomgaada iyo qualitygaada iyo numero telefoonka iyo emailkaada gelinaysaa. halkaas waxaa gelinaysaa numero seeqeynkaada
وان إل دي فرانس ماشي. waxay indicate la periodka oo wax weydiisanaysa ay halkaas ku qoraysaa. بعدين waxaad dooranaysaa situationkaada wuxuu yahay mon entreprise à faire voilà une interdiction dans la quai de public durer la période mon entreprise voilà perdu de chiffre d'affaires de wuxuu markaasito uu ku qoran yahay ayaa kala dooranaysaa. kadib waxaa halkan ku qoraysaa chiffre d'affaires kaada ay gelinaysaa. chiffre d'affaires kaada période concernant 2020 ka gelinaysaa. En plus, indiquer ici compte bancaire qu'à Guilnissa, on va te verser de l'argent directement sur ton compte, directement sur Choyan. Mais je crois que c'est Guilnissa, magasin c'est titulaire ka, alors c'est Guilnissa number bancaire et code ka. Mon business kalado, à Guilnissa, BIC ga. Enfin, demande kaada waa déclarer meeshaasaad déclarer haddii aragtid waxaad dhehaysaa valid, hadaartin waxaad dhehaysaa registré, hadaartin waxaad dhehaysaa abandonné waan ka baxayaa wey, kana waa registreynayaa way, kana waa valideynayaa wey, wadamaadkeyga saas uu ku baxayaa. kana waxaa wey haddii deen lagugu leeyahay ama amboog ha kugu lahaado deenka dee waxaa sheegaya ambooga hadduu kugu leeyahay asna dee waa sheegaysaa waqtiga ugu lahaa ay wixii kaleeta sida maxaa dib ay kugu dhigaan waqtiga aad bixin lahayd lacagta kugu siyaadin lacag oo beenaan lagu saarin. kolley intaasuu ku egyahay cashirkeena maanta. wuxuu ha ka faa'iidaystaan dadka ganacsatayaasha oo rabaan inay 1500 ay helaan maadaama maqaaxidii laga xiray dukaamadii dharka laga xiray maaqshiyadii laga xiray 1500 sidii ay ku helaan maxaa la ka badan in loo soo shubaa laga yaabo bishi kale inay ku xirtay. marka cashirkeena intaas uu ku xigaa maadaama xal aan saas u daawado madaxweynaha isla marka uu sheegay ministerka economiga suive gareeyay kan oo bixinaya maxaa lacagta iyo wixii dhan iyo sidadka soo geliyay isla marka waa kontigareeyay sidkaas ay soo direen isla markiina maxaa minister waxa way d'action de public la compte public marka isla markiiba email u qoray waa la xiriiray kadibna waxaa la soo diray maxaa la information kaan oo dhan. alxamdulillah anna waxaan jeclaa inta Soomaali inaan la wadaago maxaa la radaa gabar kale oo soo shaqeynaysa insha Allah waa balansana iyadana 20 bisha iyadana kulleyba information kale soo dirtay. information kaasna wuxuu ku saabsan sécurité sociale basi qorta sécurité sociale independent inta ayadana waa laga weydiiyaa qofka lacagaha ilmaha loo hayo kala lacag laga bixina inta ku dhufanay yaaqay qabaay iyo waxa tahay kadibna meesha saaksigsiidaysa asigana maxaa la radaa waa buuxine continue wala sasa ku buuxinaysa emailkaada soo siiteegaada waxa ina gelinaysa gabadha saaxiibano isla shaqeynaa soo dirta ayadana kolleyba maxaa la radaa information kanito waa information badan ka faa'iideysan doono. please share gareeya dad ganacsatada hadaad taqaaniin dad shaqeeya hadaad taqaaniin please la share gareeya sida ayagana u weydiistaan ee u helaan eedkan kaas dadka dhan anaga dhan waa yaabanahay. marka alxamdulillah hada meelaha helnay aan ka weydiisano aniga waan sameystay alxamdulillah waan sugayaa jawaabta waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.